mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliyeed oo maxkamadii ay uga soconaysay wadanka Norway ayaa waxaa la sheegay in maxkamadaasi ay marayso heer gabagaba ah. ninkaasi xildhibaanka ayaa waxaa lagu eedeynayaa inuu xiriir la leeyahay kooxaha Islaamiyiinta ee ka dagaalama gudaha wadanka Soomaaliya. wariyahayaga halkaan nooga soo warrama ayaa warkan noo soo diray. waxaa mar kale dib la isugu soo laabtay magaalada Oslo maalintii Isniinta ay taariikhdu ku beegnayd 20kii bisha Sebtembar dhageysiga dacwad lagu soo oogay nin Soomaali oo lagu eedeeyay inuu lacag gaaraysa ilaa 200,000 oo koroonka dalka Norway ah inuu u diray ururka Al-Shabaab 2007. ninkan dacwadda lagu soo oogay oo isagu ka mid ahaa baarlamaanka dawladda ku-meel gaarka Soomaaliya ayaa iska fogeeyay eedeymahaas isagoo ku adkaystay inuusan wax lacag ah u dirin ururka Al-Shabaab, balse wuxuu sheegay inuu qayb ka ahaa dagaalkii looga soo horjeeday ciidamada dawladda Itoobiya markii ay ku soo duuleen guud ahaan dalka Soomaaliya. waxaan raadinaa marka hore in Itoobiya Soomaaliya laga saaray inay ahayd fiina khilal alxamdulillah waxaa iska leh shacabka Soomaaliyeed oo istaagay in Itoobiya laga saaray Soomaaliya. halkan kana waa mid aniga aan ku faraxsanahay Soomaalnimo aan ku qaatay isoo qaabna uma maleynaa wixii qaab ku yimaadana aad waxaan u faraxsanahay waa inaan dagaalkan oo sida laga warqabay ahaa dagaal ay Soomaalida oo dhan ay u idlayd ayaa sida uu sheegayo ninkan dacwadda lagu soo oogay ahaa mid uu xil ka saarnaa qof kasta oo Soomaali ah, waxaana uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu ka qayb qaatay kacdoonkan looga soo horjeeday ciidamada Itoobiya ee ku sugnaa dalka Soomaaliya isagoo aan hadda wax luga ku lahayn dagaalada ka oogan dalka Soomaaliya sida uu sheegayo. يعني هو أنت يراد كتير وأنت كعظم كل سعودي إن كعظم في مدام وضمان المسكوا ما أنت واحد maalintii ugu muhiimsanayd oo marxaatiye iyo dad la isu keenay iyadoo laga bilaabay in la dhageysto cajaladihii ay ku duubnaayeen codadka la sheegay in ninkaasi ula hadlay ururka Al-Shabaab. marka ugu horeysa waxaa lagu bilaabayaa oo la dhageysanaya telefoonno la duubay oo uu kula hadlay tayskanna waxa door weyn ka ciyaaraya waxa uu ninkan u doodayna kula hadlay. mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliyeed oo maxkamadii ay uga soconaysay wadanka Norway ayaa waxaa la sheegay in maxkamadaasi ay marayso heer gabagaba ah. ninkaasi xildhibaanka ayaa waxaa lagu eedeynayaa inuu xiriir la leeyahay kooxaha Islaamiyiinta ee ka dagaalama gudaha wadanka Soomaaliya. wariyahayaga halkaan nooga soo warrama ayaa warkan noo soo diray. waxaa mar kale dib la isugu soo laabtay magaalada Oslo maalintii Isniinta ay taariikhdu ku beegnayd 20kii bisha Sebtembar dhageysiga dacwad lagu soo oogay nin Soomaali oo lagu eedeeyay inuu lacag gaaraysa ilaa 200,000 oo koroonka dalka Norway ah inuu u diray ururka Al-Shabaab 2007. ninkan dacwadda lagu soo oogay oo isagu ka mid ahaa baarlamaanka dawladda ku-meel gaarka Soomaaliya ayaa iska fogeeyay eedeymahaas isagoo ku adkaystay inuusan wax lacag ah u dirin ururka Al-Shabaab, balse wuxuu sheegay inuu qayb ka ahaa dagaalkii looga soo horjeeday ciidamada dawladda Itoobiya markii ay ku soo duuleen guud ahaan dalka Soomaaliya. waxaan raadinaa marka hore in Itoobiya Soomaaliya laga saaray inay ahayd fiina khilal alxamdulillah waxaa iska leh shacabka Soomaaliyeed oo istaagay in Itoobiya laga saaray Soomaaliya. halkan kana waa mid aniga aan ku faraxsanahay Soomaalnimo aan ku qaatay isoo qaabna uma maleynaa wixii qaab ku yimaadana aad waxaan u faraxsanahay waa inaan dagaalkan oo sida laga warqabay ahaa dagaal ay Soomaalida oo dhan ay u idlayd ayaa sida uu sheegayo ninkan dacwadda lagu soo oogay ahaa mid uu xil ka saarnaa qof kasta oo Soomaali ah, waxaana uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu ka qayb qaatay kacdoonkan looga soo horjeeday ciidamada Itoobiya ee ku sugnaa dalka Soomaaliya isagoo aan hadda wax luga ku lahayn dagaalada ka oogan dalka Soomaaliya sida uu sheegayo. يعني هو أنت يراد كتير وأنت كعظم كل سعودي إن كعظم في مدام وضمان المسكوا ما أنت واحد maalintii ugu muhiimsanayd oo marxaatiye iyo dad la isu keenay iyadoo laga bilaabay in la dhageysto cajaladihii ay ku duubnaayeen codadka la sheegay in ninkaasi ula hadlay ururka Al-Shabaab. marka ugu horeysa waxaa lagu bilaabayaa oo la dhageysanaya telefoonno la duubay oo uu kula hadlay tayskanna waxa door weyn ka ciyaaraya waxa uu ninkan u doodayna kula hadlay telefoonnadaas. dad fara badan oo ku dhaqan Norway ayaa dagaalkaas si aad ugu mashquulsanaa, sidoo kale Sweden
marka waxaa la hayaa telefoonadii laga duubay guud ahaanba dadkaas marka waxaynu dhageysanaynaa wixii ka soo baxa. dalka Norway ayaa waxaa ku dhaqan in ka badan 20,000 oo Soomaaliya guud ahaanna waxa ay u arkaan in dacwadan ay tahay mid xaqdarro ah. sanadkii 2008 markii la xiray ninkan ayay in ka badan 2,000 oo qof oo Soomaaliya isugu yimaadeen dibadbax ay uga soo horjeedeen xiritaanka ninkan. dadkii xilligaas dibadbaxay ayaa ku adkaystay inay taageerayaan walaalahooda ku dhibaataysan dalka Soomaaliya. qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Oslo ayaa u sheegay TV-ga Universal inuusan ninkan shaqo ku lahayn dacwadda lagu haysto balse uu yahay nin isagu iska shaqaysta. nin Soomaaliyeed oo waxaan ka aaminsanahay oo xildhibaan Soomaaliyeed oo waxaan ugu eedeynaya aniga ma aaminsanayn oo jira aniga mashruuc ku shaqeeyay waxaas in oday Soomaaliyeed taqaana halkaas ganacsi iska caad Soomaalida caawiyeen yahay un baan maanta أنا بسمع وحنا ما أمسنا وكذا نكان ما تنسى الأشرار وحنا عاصمات وحلقوها يستاهل محي هاي توين عبد الرحمن وحنا أركا وحقلدا أو حد جذبه إن يدو لود بقلين أما إن مقارنة ورا قلدا أو كتير أو عدين له هينين أيشران ده ويل مسكين أو شقيستا أو مقارنة ساده هرمرك ودن كيسي هرمرك ده ودن كانوا كله اللي هي أكتر قاع كل شقيستا ساسانو أكانو ودن كانوا قادم كشوفنا ساسوا. hal qof oo Falastiini ayaa lagu soo waramayaa in tiro kalena waxa soo gaaray dhaawac kadib markii nin oo qamaamsanay ay weerareen meel ciidamada booliska Israa'iiliyiintu ay ilaalinayeen oo ah dhulka la isku haysto Israa'iiliyiintu dhismayaasha ay ka dhisayso.